waqtigii quraanku dagayay lama aqoon wax la yiraahdo mawlid saxaabadii nabigu intay noolaayeen waqti bay nabiga ka dambeeyeen in badan oo ayaga kamida intay noolaayeen lama aqoon wax la yiraahdo mawlid maalmahan marka waxa jira caadina sanad walba bishan oo kale in ay dadku nooleeyaan bidcada loo yaqaan mawlidka bidcadaas oo waagii hore si yara roonbayba ahaan jirtay hadda ka dar oo dibi dhal ah meeshay maanta marayso in heer la gaarsiyo xataa in laga dhigo ciid weyn munaasabad weyn oo ciid ah oo dawladaha qaar kood xataa ay yaani ciid ahaan u aqbalaan oo holiday laga dhigo ilaa heerka marayso loogu diyaar garoobo sanadkii markay soo socoto lacaga aad u fara badan loo si ururiyo qoliyo dadka ka shaqeysto jeebkooda wax ka urursaday ay munaasabada sanadka sugaan oo Allah yaa idin gaarsiiya waxay noqotay bidco maalinba maalinta ka dambaysa irid cusub si furanaysa arintaasi ma jirin waqtigii quraanku dagayay lama aqoon wax la yiraahdo mawlid saxaabadii nabigu intay noolaayeen waqti bay nabiga ka dambeeyeen in badan oo ayaga kamida intay noolaayeen lama aqoon wax la yiraahdo mawlid ardadoodii oo taabiciina intay noolaayeen lama aqoon wax mawlid ah quruntii saddexda ahaa aimada waaweyn ay noolaayeen lama aqoon saas daraadeed atahadda hal kelimo oo ku saabsan mawlidka arwakaase hal laga soo guuriyo imaam Shaafici iyo imaam Maalik iyo imaam Ahmad iyo Abu Hanifa iyo Awzaa'i iyo Thawri iyo Ibn Uyayna arha laga soo guuriyo maxay yeelay maba jirinba wax la yaqaanay ma ahayn goormay timid culimada inta qaar kamida u qiil raadiya iyo jamaahiirtooda oo diiday waxay isku waafaqsan yihiin culimadii mu'tabariinta ah baan ka hadlay ma nin soo rucleeyay oo hawa wadama ah laakiin culimadii mu'tabariinta baan ka hadlay rag wax u raadiyay xataa waxay rumaysan yihiin inayna saddexdii qarni midna jirin waa la isku waafaqsan yihiin laakiin wixii ka dambeeyay ay timid qolada ugu roon waxay leeyihiin waxay timid qarnigii afraad qolo kaleetana waxay leeyihiin ma qarnigii lixaad bay ku soo biirtay adduunkaba raadkeeda inaan dib u sii raaco mar raba yaa keenay waqtigu iima saabaxay oo xidid xun bay leedahay mawlidku marka la raad qaado yaa bilaabay xididkiisu ma fiicna niman zanaadiqa baa bilaabay oo faatimiyiin la dhihi jiro culimada islaamku isku waafaqsan inay gaala ahaayeen oo ka talin jiray maghrib al-arab iyo masar waqti ka talin jiray nimankaas bilaabay wax jiray oo hore ma aha marka mar haduusan horeynin hal su'aal isweydiid ruuxa caamayga ah muxuu yahay ilaahay baan idin ku dhaariyay khayrka nabi maxamed ka qarsoomay sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii ka qarsoomay taabiciintii ka qarsoomay saddexdii qarniye imaamiyadii waaweynaa ka qarsoonay ee ummadda u soo baxay qarnigii afraad khayrkaasi xagee ku duugnaa su'aal aad isweydiinayso sidaas daraadeed baa qodobkaasi markay mari waayeen nimanka u ololeeya mawlidka oo qodobkaasi ku adkaaday ayay intay ka wareegteen alla ka cabsi baan jirin oo alla laga ma baqayee intay ka wareegteen baa waxa la bilaabay in la yiraahdo quraanku waa mawlidku ku yaala ajaa'ib war xagee kaga yaala markaas la bilaabay in aayadihii quraanka la luqunji baaro oo inta luqunta la soo qabto qaabkii la rabo loo geliyo oo meeshii la rabo loo daliishado war aayade qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu umad buhur fadhiya wa wadaad wa imam wa sheekh kutubu akhriya aayadaas mawlidka ku tusibu war yaa kaaga horeey uma baahni wax iiga horeey war yaa saa ku tafsiiray uma baahni ma ibn Abbas ما ابن عمر ما مجاهد ما سعيد بن جبير يا كفسري وما بباهني إلا يجي هري وركوا صول لحد مر واجي هر وعن قرنيا وحلقت دودي تشري مولود كوا بدعه هوا بدعه ويقري تشري لكن وبدعه حسنه أبي كدودي تشري
وبدعة لكن وبدعة ونأكسن هل كاسي دودة كجلي جرين لكن بهالشي تكتيو هذا وحيبا مريسا بدعة ما هي قرآن كاب الشيخ قرآن كي مركا آياتي سين لقو عياره وعامد لقو وريريو وتفسير أين لهين لصاره